السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا عاوي عياره ورعاو وحانو ايقدونا عياره دعاي عاو الله وضع عياري iyo sidoo kale warar ku saabsan sportiska madaxa isgaliya kooxda Liverpool iyo kooxda Luton sidoo kale waxaa la wada ciyaaray Champions League wareegiisii 16aad kooxda Arsenal iyo FC Porto ayaa madaxa isgaliyay halka Napoli iyo Barcelona ayaguna ay madaxa isgaliyeen waxyaarta wada naga daawanaysaa nooc imaamada oo falowda iyo sharti like inta nagu caawiya dhiiqadii dhiiriga iyo ciriiriga inta naga saara Manchester United oo u yeeranaysa tababaraha Bayern Munich ay shaqada ka eriday waa maxay sababta Liverpool ay uga caroonaysaa leeyahay Bayern Munich in ay shaqada ka eriso macallin Thomas Tuchel hambalyo Liverpool kooxda Liverpool ahayd caawe Salah baa maqan iyo hebel baa dhaawac waxaas ma jiraan kooxda Liverpool ahayd caawe درسن بيديش درسن ليفربول هاي عاوة أفر يهال بيكو بدسي حاوة ليفربول عيال كيركا هدي جوغان يرقوا وين هدي جوغان بوا سقمت حالي العاوة ليفربول محمد صالح كدا وعن جوتا كدا وعن نونيس كمغن أليسون إنجري عجر كبودي وحا صورنا محوكي مجران عاوة هافكي هورتو عيارتا waxay ku soo dhamaatay hal iyo ever oo Liverpool hal baa lagu la hormaray alasaydi 12 daqiiqo markay mareysay hal baa lagaga naxsaday Liverpool markii hal lagaga naxsaday waxay isdhaheen Liverpool waa isdhiibeen waxay dhaheen wallahi caawe odaygii Jordan Klopp baa wuxuu isra caawe waa weynkiya maqan alaga faa'iideysan rabaa halka dhibic oo Man City ka horeysidna ma dhaafi doonto isra caawe asagoo wadna kurkur wadnaha garaaca wadna kurkur ku jira haafkii dambaa lasoo kala wareegay haafkii waa dhammaaday wareegii dambaa lasoo noqday Van Dijk ayaa banooni garaacay Van Dijk ayaa halkaga xareeyay halkaas oo ay xoogaa maskaxda u degtay Liverpool isdhahday xoogaa mataqaanaa waa markaan hal iyo hal waaye mataqaanaa ciyaarta hal iyo hal waaye xoogaa wuxuu isiri odaygii niyadu soo yeeshay moraal yar soo yeeshay xoogaa marka odayga moraal yar soo yeeshay markuu xoogaa soo yeeshay kadib oo uu fadhiga ka kacay ciyaartii waa la karkariyay markaas kooxdii Luton ahayd oo habeen dhaweed Man U ay ka badinaysay habeenadan dhan waa laga badbadinaa iyada saddexda kulan u dambeysayba Luton waa la garaacay marka 56 daqiiqo markay ahayd Van Dijk ka hiritay ciyaartu waa socotay isla 2 daqiiqo kadib Gagba isagana sidoo kale ku tuuray Gagba ayaa isaguna sidoo kale gool ka dhaliyay markay socotay 58 daqiiqo markay 2 daqiiqo kadib oday markaas waa soo noolaaday wuxuu yiri kaalintayda markaa waa sii dheeraysan karaa caadi waa 57 dhibcood awal ku hayay bal caawato maadaama game ilhaankiina Man City u dhimanaana ay dhashay wuxuu isir odayga markaa waxa waaye waa bal caawa kuwa ka fujiyaan 71 daqiiqo markay ahayd Luis Diaz dhinaca isagan ka soo booday gooshiisa isaguna waa ku tuurtay adiga waa socotay 90 markay marayso kiiraayo gaabnaa Elliot Lahay asagana goolkii afraad dhaliyay halkaas Liverpool waxay ku soo ilaatay 4-1 oo indhaha ay ka gelisay kooxda Luton ahayd saddex dhibcood oo kale hal dhibic ay ku haysay Man City kaga haysay saddex dhibcood oo kale waa ku darsatay 4 dhibcood hadda saas ku haysaa 60 ay leedahay Man City oo ku xigtana waxay leedahay 56 saas 4 dhibcood ay kaga haysaa kaalinta labaad Man City 4 dhibcood marka laga hayaa sidoo kale wareegii 16ka Championka kooxda Arsenal iyo FC Porto caawe ashab isirno markay shab isiraadeen kooxda Arsenal ahayd waa dagaalantay 90gii ever ku dhamaatay labadooda anagoo isla warkii aad tabisid oo 90gii sugayo oo warkii aad tabisid leh mar aan shaashadaha ila kala baxay oo alaabteedii qalabkii aan la kala baxay amba waxaan arkayba Arsenal oo iqari camal garoonka uga sii baxaysa dhuumusho garoonka uga baxayaan hebel iga qari ayagoo ku baxayaan arkay waa yaabay maxaa jira dadkan dhuumanaya maxay rabaan aan dhahay ilaan halaab loo rido ma ogiyo Arsenal caaw waxa ku dhacay FC Porto hambalyo
halka gool akhir saac extra time-kii ku tuurteen Champions League qadii ugu dambeysay markii Arsenal lagu daray 4 daqiiqo lagu daray 90-kii nin Galeno la yiraahdo Galeno ayaa kaga ritino marka Arsenal saasa loogu diray 1-0 kii loogu diray caawa Barcelona waxay la ciyaartay kooxda Talyaaniga ee Napoli iyo Barcelona ayaa caawa ayagana isqabtay markay isqabteen ciyaartu waa socotay haafkii hore ever ay ku dhameysteen ciyaarta wax gool ah wala kala dhalin waay ciyaarta haafkii dambe markii laga soo noqday Roberto Lewandowski ku riday hal xabo markuu riday Barcelona fadhiga ka kacday waa qaylisay waa buuqday waa reeyna camal ay dhahno soo socotay ciyaarta 75 daqiiqo markay marayso maadaama uu Roberto Lewandowski uu dhaliyay 60kii hal gool uu ka dhaliyay 10 daqiiqo markay ciyaartu socotay Victor Osimhen Nigerian-kii khatarta ahaa ayirho waa ugu dhiibay isagana ciyaartaas waxaa la isugu diiray 1-1 kii lagu dhameeyay ayadana baraja lagu dhameeyay caawa championka labadaas ciyaarood ayaa ka dhacay afartaas kooxood ayaa wada ciyaaray afartii kooxoodna Arsenalna halkaas lagu diro saacadii u dambeeyay iska dareer leeyir kooxdii Barcelona ahaydna iyo Napolina hal iyo hal ay ku kala baxeen kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa loo sheegay inay u yeerataa loo sheegay tababaraha kooxda Bayern Munich oo shaqada ay ka ceyrisay Thomas Tuchel Bayern Munich ayaa maantay Thomas Tuchel shaqada ka ceyrisay oo maanta la shaaciyay in dhamaadka xilli ciyaareedka uu ka tagi doono Allianz Arena garoonka Arena Thomas Tuchel haddii xilli ciyaareedku dhamaado uu goynayo la leeyahay subaxnimadii saaka hore ayuu sheegay Thomas Tuchel isaga shaaciyay nafsad ahaantii isaga shaaciyay inuu goynayo oo kooxdan uu ka tagayo isaga sheegay waxaa la yiri fulay xantiisa ma mooga xalina waa idin sheegay Thomas Tuchel saddex ciyaarood ugu dambeysay markii madaxa lala galay kooxda go'aan ka gaartay macallinkana raadsanayna walaalow inta macallinka raadsanayna xilli ciyaareedka dhamaanaya iska joogaaliin marka xalay xantu ogaa isla saaka ariseydii warku wuxuu kusoo kalahay idaacadii kusoo kalahay camal aniga waa tagayaa camal ogaada waa waray hayay dooliga waa baxaya oo uu bilaabay ariseydii uu bilaabayba subaxnimadii saaka ayuu Thomas Tuchel shaaciyay inuu ka tagi doono kooxdaas dhamaadka xilli ciyaareedka wax yar kadib kooxda ayaa ku dhawaaqday haddana waa kaas fiir kooxda oo u socota idaacadii kooxda u socoto kaga hormarno isaga kaga sii hormaray intiina isheegina isheegaa camal anaa isheegayaba intiina isheegin anaa isheegaya inaa camal inay ceyrisaan rabtaan Soomaha anaa bis ceyrinayaba meesha uga sii hormaray wuxuu yiri waa ka tagay ogaada xilli ciyaareedka haduu dhamaado anigu waa yaacaya idaacadii ku iyo socdo kooxdii socota idaacadii maaday Thomas Tuchel ma idin maada ha muxuu yiri waa ka tagayaa ha anaga ceyrinayna anaga tago anaga ceyrin rabne uu naga soo hormaray ha naga tago naga tag bay marka niyo Thomas Tuchel oo waliba kooxda Bayern Munich loo magacaabay macallinimadiisa sanadkii hore bishii March wali hadda sanad uma buuxsamin bishan March oo soo socoto sanadku u buuxsamin sanad soo u buuxsamin ayay ku kala baxeen barnaamijka marka waxaana galaaftaa la leeyahay guuldarooyinkii saddexdii guuldarro isdaba taalay ayaa galaafta halkii championka iyo halkii wadanka iyo labadii kale wadanka iyo halkii championka Bochum horta soo afjartay kooxdii 3-2 kaga badisay soo afjartay ayadoo laga caraysnaa tii Xavi Alonso ayuu Lazio waa tii lagu soo tuntay hal 1-0 loogu soo raay marka saddexdii ciyaarood ugu dambeysay maadaama kooxdii Bayern Munich ahayd haddaad macallin u noqonaysa hadda macallinka tagay oo sii sheega hadda macallin u noqonaysa saddex gool daradaad gashid waa lagu ceyrina hadda ugu waa lagu sii sheegaya hadhow la iima sheegin iyo intay ka baxday ma laga yeelayo waa lagu sii sheegaa haddii Bayern Munich aad defeatkeeda badisid waad baxaysaa ugu ama Zidane ahaw ama Abu Salid ahaw ama Abu Bardad ahaw aday ku taala haddaad defeatka keentid waad baxaysaa hadda ugu waa ku sheegna anaga dignin waa qabtaa halyeygii hore ee kooxda Manchester United Stephen Bruce
Thomas Tuchel oo macalinka ku habboon buu leeyahay kooxda Manchester United oo guulo gaarsiin kara. waxaanu u soo jeediyey in xagaaga lagu bedelo Erik ten Hag. Steve Bruce waxaan u malaynaa Erik ten Hag ula dagaalsan yahay kooxdiibu oo toosh ku siifinaa wuxuu leeyahay Steven Bruce wuxuu leeyahay iska cayriya Erik ten Hag Thomas Tuchel baa idin anfacaye macnaha keena. Thomas Tuchel wuxuu yiri Steven Bruce wuxuu kala hadalkiisa ku daray Chelsea ninkaas ku qaldantay guulo waaweyn u gaarsii oo ku qaldameen marka maadaama ay ku qaldameen markuu Chelsea ka tagayna Bayern Munich hore ka qaadatay markay Chelsea cayrisay Bayern Munich hore ka qaadatay Bayern Munich hadda ku soo fashilay marka wuxuu leeyahay kooxda Manchester United wuxuu u sheegayaa war ninkaas soo qaata kooxda Manchester United ninka kaliya samata bixin kara waaye soo qaata midkan dhasada basadiirka oo Mr Bean iska diru leeyahay Mr Bean ma loo baahna iska dira ninkaasna keenu leeyahay marka Thomas Tuchel kooxdii Old Trafford ayaa loo sii xarxaraya ma aqaan Manchester inay qaadan doonto basadiirka oo Manchester United jooga oo Mr Bean asaga cabaara loo dulqaat guuldaro marka Steve Bruce wuxuu istusay haddii uu Thomas Tuchel la keeno oo 10 guuldaro gala xataa cabaar waa loo sabraya Manchester United sida Bayern Munich oo kale maaha marka wuxuu leeyahay Bayern Munich haddaad tagtid maadaama macalinkan la ceyriyay waxaa loo ceyriyey saddexdii kulana uu qaladka galay oo mataqaanaa oo defeatka galay marka wuxuu leeyahay dhulkaas ciriiriga macalinkaas waa ku bas qaadan waayey dhulkan ciriiriga oo kaleeto waxaa ku bas qaadanaya uu leeyahay macnaha Thomas Tuchel dhulkan ciriiriga Old Trafford buu ku bas qaadan karaaye dhiirigan uu ka bixin karaaye marka Thomas Tuchel halka hala keenu leeyahay kooxdii Liverpool ahayd ayaa aad uga carootay in Thomas Tuchel laga ceyriyay Bayern Munich sababta ay uga caroonayso marka maxaa sababta ay uga caroonayso waa maxay sababta ay uga caroonayso kooxda Liverpool in Thomas Tuchel la ceyriyay sababta uga caroonayso waxay uga caroonaysaa Thomas Tuchel haddii la ceyriyay kooxda Bayern Munich waxa ay rabto isha ku hayso waa Xabi Alonso kooxda Liverpool ahayna waxay ka baqaysaa Xabi Alonso in laga dafo maadaama Xabi Alonso uu yahay halyeey usoo dheelay labada kooxoodba Bayern Munich iyo Liverpool ba aad u raadinaysa marka Bayern Munichna waxa waa ayadana walankii soo gashay sababta ay marka Thomas Tuchel u ceyrinaysa Bayern Munich ayaa waxay tahay in ay Xabi Alonso isha ku hayso maadaama Xabi Alonso ay isha ku hayso Liverpool Thomas Tuchel inuu iska sii joogay rabtay si aysan wax loolana ugala kulmin in ay qaadato Xabi Alonso marka xagaaga hadduu dhamaado Xabi Alonso loolan adag buu gelayaa maadaama Bayern Munich ay raadinayso Liverpool ay raadinayso labadan kooxood oo ku hardami doonaan marka waxay leeyihiin Bayern Munich sababta ay u ceyrisay Thomas Tuchel maxay tahay Bayern Munich in kaar Allah ku riday maxaa u ceyrisa leey annaga rabtaa inaan culays masaarto anagoo raadinayna ninkan ku dhibaatoonayna Jurgen Klopp oo xagaagii dhaweed ku dhawaaqay inuu tagi doono ayaa la rabay in lagu bedelo Xabi Alonso maadaama la rabay in lagu bedelana kooxda mar hore si calaamaysatay Liverpool waxay tiri nin mataqaanaa aan isaga ahayn marno Bayern Munich saakay ay waxay ku dhawaaqdeen inay Thomas Tuchel fog of tiri ceyrisay ay tiri xagaag inta ka dhiman maalmeera ku dhiman sanadka xataa nagu buuxsanina naga tagay dhaniyo uma arki karnaa duqsiga u dhalay duqsi Tuchel naga tagay dhaniyo marka Xabi Alonso xaalkiisa uu cariiri u sii noqonayaa maadaama labada kooxood ay ku hardamayeen in Xabi Alonso kala qaataan marka aad waxaa loogu badinayaa kulli lama garanayo lama saadaalin kara hadda wax laba mid ba garab taala Liverpool ma aadaa Bayern Munich ma aadaa Liverpool ma aadaa marka isaga naftiisa kala dooran doono markaas markuu soo madax banaanaado hadda weli xagaagii ma dhamaanin markuu xagaaga dhamaado oo kooxdan uu inuu koob kula guuleystay macquul tahay markaas kadib uu go'aan qaadanaa ninkaas inuu xag aadayo inuu xag aadayo marka waanu arkaynaa isagana wixii ka soo kordha waanu arki doonaa